waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay bedesho aragtideeda siyaasadeed dadka Soomaaliyeed marxaladda uu marayo wali wuxuu ku jiraa geedi socod siyaasadeed inay kaligood isku dayin oo markay wax dhacaan aysan ka daba tagin waxaan ka codsanaynaa in ay kaalin mugle ka qaadato sidii dalkan looga saari lahaa marxaladdan aysan ku sii dayn madax Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan u yimaada mararka qaarkood in ay waxay doonaan sameeyaan waxaan uga mahadcelinayaa dawladda Mareykanka iyo EU-da qoraalladii ay soo saareen waxaan ku boorinayaa dawladaha kale ee dalka taageera inay mawaaqif cadcad ka yeeshaan dalkan hantidii gashay oo caalamka ee ka gashay inaysan khasaarin Soomaaliya oo ku taal geeska Afrika oo ah juqraafiyan meel aad muhiim ugu ah amniga iyo deganaanshaha qaaradda Afrika iyo adduunkaba in gacan weyn laga geysto sidii dalkan loo xasilin lahaa amnigiisa looga shaqeyn lahaa wixii la soo qabtayna ay dib u noqon lahayn marka waxaan rajaynayaa Soomaalida iyo beesha caalamkaba inay ahmiyadii hore la siin jiray mid ka weyn siiso hadalka aan jeedinayno Puntland ahaan waxa uu ka dhigan yahay khatar aan dareemayno oo aan rabno in laga hortago aad baad u mahadsantihiin